kulanti habboon idil ahaantiin baddaawadayaal halkan waa Raadsan TV ku soo dhawaada macluumaad kooban oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka. markan waxaan idin la wadaagi doonaa macluumaad kooban oo ku saabsan madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo hoygiisu ay dhooban yihiin tiradii ugu badnayd ee dad ah kuwaasi oo guud ahaanba cabasho ka ah xukuumadda talada joogta iyo sidoo kale beelaha habargidin iyo abgaal oo markaasi si toos ah isugu dhiibay madaxweynihii sagaalaad ee dalka waxaana la tilmaamayaa in hoygiisa ay buux dhaafiyeen saraakiil ciidan xubno siyaasiyiin iyo sidoo kale dad aad u tiro badan kuwaasi oo guud ahaanba uga xog waramaya xaaladaha isku gudban ee ka jira gudaha dalka waxyaabaha kale ee daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye waxa uu ka tanaasulay guud ahaanba arrintii la xiriirtay siideynta maxaabiista ku xiran gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud toddobaadka soo aadan ayuu tagaya gudaha magaalada Laascaanood ujeedka ugu muhiimsan waxa uu yahay in uu ka qayb gala caleemasaarka madaxweyne Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye sidoo kalena uu xabsiga ka sii daayo maxaabiistii ugu badnayd Faysal Cabdi Bootaan ma ka mid yahay warbixintan ayaa idin kula wadaagi doona soo dhawaada haday tahay markaaga kuugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noona like garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashada aanu si ambaqaad wararka laga helay hoyga uu magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ka degan yahay madaxweynihii sagaalaad ee dalka ayaa waxa ay ku waramayaan in dadyoogii ugu badnaa uu hoygiisa buux dhaafiyay kuwaasi oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socda siyaasiyiin xubno mucaarada saraakiil ciidan ayaa la tilmaamayaa iyaguna inay qayb ka yihiin dadka booqday hoyga Farmaajo uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa lagu jaangooynayo kulamo xasaasi ah oo halkaas ka dhacay kuwaasi oo guud ahaanba beeraha abgaal iyo sidoo kale beesha habargidir ay ku dhisayaan guud ahaanba madaxweynihii sagaalaad ee dalka ujeedadan lama micnayn karo mana la qiyaasi karo waxa ay daaran tahay sababtuna waxa ay tahay in markaasi ay yihiin dadkii la dagaalamay madaxweyne Farmaajo isla markaana kursiga ka cayriyay haddase inay u laabtaan isla markaana hoygiisu ay tagaan waxay noqonaysaa arrin siyaasadeed oo damacyo kala markaasi ay hor cararayaan sida ay tilmaamayaan falanqayaasha arrimaha siyaasadda waxa la tilmaamayaa hoyga Farmaajo uu ka degan yahay caasimadda Muqdisho in siyaasiyiintii ugu badnayd galabtii ay u soo gaxwa doontaan isla markaana Farmaajo ay kula sheekaystaan halkaas waxa la tilmaamayaa in lagu jaangooyo xaaladaha siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka geyigeenuna waxa uu marti gelinayay muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladaha siyaasadeed oo cakiran kuwaas oo isku tafan oo ka dhashay guud ahaanba barakicin dhuleed waa barakicin shacab oo markaasi dhulka danta guud loo gacan gelinayo siyaasiyiin iyo sidoo kale ganacsato lacaga boorsado ku wada sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo siyaasadeed oo iyaguna isku tafan kuwaas oo siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay ay bulshada uga cabanayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ah xudunta dalka isla markaana ee dadka ugu badan ay ku sugan yihiin ayaa guryo laga barakiciyay waxaana dadkaasi barakaca sameeyay ee ka mid ah xukuumadda talada joogta oo iyadu markaasi cagaf u isticmaashay dadka waxayna ugu jawaabtay in aan laga ogolayn jiingada inay ku sii taalo caasimadda dalka dadkuna ay ka baxaan guryaha si markaasi loo hagaajiyo waxay noqonaysaa tallaabo aanan dad lagu barakicin karaynin balse waxa ku jira damac duugan kaasi oo aanan la ogaan karin ujeedka rasmiga ee ka dambeeya walow darasayaashu ay qiimeynayaan isla markaana ay sheegayaan inay tahay kaliya damac lacageed oo markaasi ku jira xukuumadda talada joogta iyo madaxweynuhu waxaana la tilmaamayaa hadda hoyga Farmaajo uu ka degan yahay caasimadda Muqdisho in kulamo xasaasi ah oo siyaabooyin kala duwan markaasi looga gorfeynayo xaaladda siyaasadeed ee isku dhafan ee ka jirta gudaha dalka ay yeelanayaan siyaasiyiin xubno mucaarada iyo sidoo kale taageerayaasha madaxweynihii sagaalaad ee dalka waxaana madaxweyne Farmaajo uu sheegay in mar dhow ay maangal tahay in uu kula hadlo shacabkaasi qaybo ka mid ah magaalada caasimadda Muqdisho ayna tahay tallaabada ugu habboon ee markaasi garabyadu ay qaadi karaan waxaana la tilmaamayaa isla markaana wararkii ugu dambeeyay saacadii ugu dambeeyay la helayo ay tilmaamayaan Farmaajo in sidoo kale Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre iyo xubno kale ay hoygiisa tageen kuwaasi oo ku qancinayay in Farmaajo guud ahaan uu aqbalo qorshaha tagitaanka magaalada Kismaayo ay xukuumadda talada joogta qorsheynaysa inay ciidamo hor dhigto isla markaana ay ku afjigto dhaqdhaqaaqyada xooggan ee daneeyayaashu markaasi ay wada waxa la tilmaamayaa isla markaana ay ka baqanaysaa xukuumadda talada joogta gaar ahaan villa Soomaaliya
in caleemasaar loo bedelo safarka magaalada Kismaayo taasina ay doonayso inay afjigto marnaba aysan suuragal ahayn sidii farmaajo uu sameeyay ayuu mar kale xasan doonaya waxaana la tilmaamayaa in uu diyaarad sida saraakiishan waa xasan cali khayre farmaajo sidoo kale shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xubno kale oo dani uu qayb ka yahay in guud ahaanba la hakiyo safarkii ay ku tagi lahaayeen gudaha magaalada Kismaayo halkaas oo ujeedka ugu muhiimsan ay u tagayaan ay tahay in ay ka qayb galaan shirweynaha halkaas ka dhacayo ujeed kale ayaa mutaxan oo markaas lagu micneeyay in guud ahaanba isaguna uu yahay ka qaybgalka shirkaasi uu ku hoos dugan yahay caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe kaasi oo aanan weli la caleemasaarin ka gadaal dib u soo doorashadiisa waxaa la tilmaamayaa in xaaladdu ay tahay mid cakiran isla markaana siyaabooyin kala duwan hadda looga ololeynayo madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa mar kale inuu ku soo laabto saaxada siyaasadda dalka waxaana uu doonayaa in galaangal fiican uu ka sameeyo siyaasadaha isdiidan ee ka jira gudaha dalka waxaana la tilmaamayaa hadda tallaabadaas in lagu raad joogo isla markaana garabyada siyaasadeed si weyn ay uga shaqaynayaan wixii macluumaad uu ku soo kordha kulankaasi wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan markan cabdiqaadir aw cali firdhiya hogaamiyaha maamulka dhawaan galka ee waqooyi bari Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa inuu aqbalay shuruudo markaasi uu ku xiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya tegitaanka magaalada Laascaanood kuwaasi oo asiideynta maxaabiista iyo sidoo kale in guud ahaanba qorshayaal dhowr ah uu ka tanaasulo waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkaasi uu aqbalay isla markaana Faysal Cabdi Bootaan iyo saraakiil kale oo Soomaaliland laga haysto xabsiga laga sii daayay madaxweynaha waxaa la tilmaamayaa hadda safar isaga oo markaasi saraakiil ah xubno isaga safarkiisa horu dhaca waa saraakiil ciidan xildhibaano iyo sidoo kale golaha wasiirada ka mid yihiin ay tagayaan halkaas balse ciidamada Tirabeela ayaa la tilmaamayaa oo kun askari kor u dhaafaya lagana soo kala xulay ciidamada kala duwan iyo qaybahoodaba inay tageen gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ujeedka ay halkaasi u tageen ayaa la sheegay inuu daaran yahay guud ahaanba in tallaabooyin la qaado isla markaana aanan laga taxadirin wax waliba oo markaasi ku qotoba in maxaabiistaasi xabsiga laga sii daayo waxaa la tilmaamayaa in dhawaan ay soo rogayaan bandow guud oo la xiriira guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee ka jirta gudaha deegaanadaasi isla markaana lagu ilaalinayo nabadda iyo xasiloonida deegaanka si markaasi halkaasi uga daga madaxweynaha tobanaad ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo halkaasi tagaya waxaana la tilmaamayaa in tallaabadu ay tahay mid weyn Somaliland arrintan waxa ugu jirta dan xoogan oo markaasi maxaabiis saraakiil oo ka xiranayay markaasi gacanta ku dhigaysa iyadoo sifaala shuruud la'aan ku helayso walow ila kale ay tilmaamayaan in Xasan Sheekh Maxamuud uu dhil la soo galay Somaliland isla markaana saraakiil waaweyn ay ka xiran tahay ana doonayaan in markaasi loo gacan geliyo waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay tahay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee gudaha magaalada Laascaanood waxa sidoo kale uu ka qayb galayaa caleemasaarka madaxweyne Cabdiqaadir aw cali firdhiya ciidamadan waxa ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada nabad sugid booliis military oo markaasi koofi cad ay ka mid yihiin waxaana la tilmaamayaa in ujeedka ay halkaasi u tagayaan ay tahay sugidda amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saacadaha soo aadan ama toddobaadyada soo aadan ku wajahan gudaha deegaanada gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Waqooyi Bari waxaa la tilmaamayaa xaaladuhu inay cakiran yihiin isla markaana wajiyo kala duwan ay leeyihiin waxaana la tilmaamayaa hadda wixii ka dambeeya inay qaadayaan tallaabooyin markaasi u muuqanaya kuwa markaasi ka tarjumaya dhaqdhaqaaqyada xooggan ee maalmihii ugu dambeeyay garabyadu ay wadeen wixii macluumaad uu ku soo kordhana wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo